بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومدى الصومالية هالكان كسلام هيا إن سودا وهذا ولا ليال برنامج كيجو كسودا وهذا محمد مانتي صعدها إن أرتور فرحة الدنيا ذوين مانتي وحكوين ملهم كلية سياسيين تي الصومالية در يدارود يهوي سودا ويسكي عبد الرحمن عبد الشكور وحل اسكوبو تجي ديار دهوستيد انتي وحقرده انتي قولها شعبك برلمان كوجرته انتي ماركتي مسؤولين هيسي انتي oday dhaqameed ahayd waxa la iskugu tagay inside-ka diyaaradda hoosteeda lagu sugayay cabdiraxmaan cabdishakuur aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madaxweynaha future-ka oo soo socda cabdiraxmaan cabdishakuur warsame 2021 waana ku soo dhaweynaynaa ciiltiraha Soomaaliyeedna waad noqonaysaa ciilka aan qabnana waad naga bixinaysaa waddan ajnabi oo dambe inuuna siyaasadeena iyo baarlamaankeena iyo wasiir arrimo dibadeed iyo gudeed iyo safiiro oo Itoobiya ay leeyihiin Itoobiya dhex fadhiya iyo inayna dib dambe noogu noqon bakay waxa ay cadeynayaa oo soo cadaatay safiirka Soomaaliyeed oo Addis Ababa fadhiya waa laga qaaday ninkii hore waxa la dhigay nin Oromo ah ayaa safiir Soomaaliyeed u ah nin Oromo ah ayaa ka dhameynaya Soomaaliya wax laalay waxay rabto asagoo ka gaaraya danaha ay leeyihiin Itoobiya yaa waxaas ka dambeeyay waxa ka dambeeya ninka la leeyahay farmaajo nan ogeyn dowladnimada iyo xornimada dhibaatadii loo soo maray dhiigii u soo daatay bacdal ma aragtay 91 92 ummadda Soomaaliyeed dhibaatadii soo kala gaartay oo ayagoo walaalaha sokeeyaha is wada dhalay ay dhiig iska wada shubeen waanwaanadii ka dambeysay meel wada fadhigii ka dambeysay waxa la soo gurguurto ma sha Allah tabaarakallah maanta oo isdhii karna Soomaaliya waa degtay nin dictator oo anigu aan ku tilmaamay Hitler oo ninkoo arka foornada gelinaya xabsiga u dhaadhicinaya ama dilaya ya oo farmaajo ugu noqday farmaajo haduu is leeyahay shalayna adaa soo koray oo iskeenay meesha kursiga uu ku fadhiyo maantana oo u maleeyo 4 sano u dhiibanay inuu wadanka wax ka qabto magaalada Muqdisho dhiso madax banaanideeda oo dhiso oo gobolada la wada sameeyo xaquuqaha ay leeyihiin la wada sameeyo internationalka oo naga taageero magaalada iyo ciidanka Soomaaliyeed oo aad u dhiso dhismihii ciidanka ayaan uga baahneen in beeshin ninku 4 sano kursiga ku fadhiyo wuxuu ka shaqeynayay sidii uu ku hanti lahaa kursiga wuxuu u qabtay ummadda Soomaaliyeed ma jirto wax laalay waxaan arkaynay waa qabta baqashi waxaan ku qaarijinayay dawladdan u bood gobolkan madax banaano hala dhiso gobolkan galmudug gacanta ku dhig Hirshabeelle gacanta ku dhig Koonfur Galbeed gacanta ku dhig aad ku shubatid aad kaligaa is magacaabtid nimanka lacag si ugaaskii waxaan ku leeyahay xawaadle lacag fooqal aqliyaha la siiyay xawaadle ayuu gatay aan ku leeyahay waxa lagu leeyahay niman siyaasiyiin oo Soomaaliyeed oo sheegta qabiilka xawaadle la yiraahdo xawaadle anu aqaana dad fiican bay ka soo jeedaan waa dad mujaahidiin ah waana dad wax garasho leh wax garadna leh waana dad wada cilmi leh marka ugaaskii muxuu sameeyay ugaaskii lacagtii la siiyay intii ugu badneed asaa ku dhuftay intii kaleetana niman badan buu u qaybiyay oo la sheegayo wasiirro xildhibaano rag madax ka soo noqday dawladda federaalka oo maantana haraati lagu wada dhuftay marka aad iyo aad baan uga xumahay wax laga xumaadana waa tahay gobolka in la dhaafsado lacag waa laga fiican yahay wadanka in la dhiso dawladdu ay dhisto shacabkan iyo dadka qaylinahayana ifraha ka qaaday laakiin maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu keenay inuu qabiilooyinkii Soomaaliyeed been ka wada dhaadhiciyo been afka iskugu dilo sida galmudug oo kaleeto odayaasheenii oo caayay wax garadkeenii oo caayay kulli qof u dhaafay male marka waxa isweydiis mudan ummadda Soomaaliyeed tan cabdiraxmaan cabdishakuur gadaalan ka galahayay waxa wax mudan maaragtay maxay tahay farmaajo wala soo doortay doorasho soo galay gacanta laga qabto rag asaga ka horeeya ka qabtay maxay tahay kursiga uu rabo inuu hanto meesha wuxuu u maleeyaa in Hitler uu iska leeyahay war Hitler maalin cad la soo laqay war Mussolini maalin cad la soo laqo Talyaaniga haystay Hitlerna Jarmal buu haystay war maxaa ku keenay inaad Itoobiya oo dagaal ninkan jiran abii la leeyahay uu raadinayo oo madaxa ka hanta adiga muxuu ku qaban karaa abii ma Soomaaliya dagaal ku soo jeedin karaa Itoobiya ma Soomaaliya la dagaalamaysa maxaa naga dhaxayaan ku dagaalamayna ogow nin kasta tiisa ayuu ka fikirayaa adiga waxa lagu hantay nin dhiigicab ah oo kaligi taliya ah oo la yiraaho abi Ahmed ayaa farmaajo madaxa ka haysta waa nin aan aqli lahayn maamulna lahayn siyaasadiisana aan maamulan karin marka wax kasto laga dhaadhiciyay Soomaaliya kama socoto am so sorry Allah ya abi Ahmed waxa allaalay waxa Soomaaliya ka rabto walaal kama soconayso Soomaaliya Soomaali baa leh Itoobiya ma lahan
laakiin ragga laciifka oo masaakiinta sida farmaajo oo kale ayaad waad ka aqli badan tahay ayaad gumaysan kartaa oo aad dhihi kartaa waddankaada baabi'i wasiirka arrimaha dibadda tuur waa nacaayay annakaa iminka ka marqaati kacayna dagaalada uu ka wado maaragtay abiy axmed waa idab darro waddankoo degan ethiopia very nice ah abiy axmed wuxuu dagaalka iyo maaragtay uga riday waa very disgusting sababtoo ah wuxuu rabaa inuu keligii taliyo noqdo may fahmaysaan keligii taliyo doorashadii uu diiday saasuu tigrii ula dagaalamaya tigrii waxay samaysa male abiy axmed war doorashada qaba iyo qaban maayo waa midda maanta farmaajo uu ka dhaadhiciyey farmaajo waxaan tusaynaa dhul hawiye inuuna madaxweyne dambe ka noqon doonin waa ballan ilaahay taas aan qaadna annagu soomaalina waa nala qabtaa dhulka hawiye walaal haddaad istiri ku nagaad oo canshuur ka qaado ninna wax kuu qaban maayo hawiye adiga iyo wax lamidana farmaajo ma gumaynahayo mana gumaysan karo taasaan ku leeyahay adiga raggii kaa darnaa oo lafaha soo rugay ayaa hawiye wax ka qaadi waayay marka waxaan ku leeyahay maskiin laciifaha tahay ciidamada soomaaliyeed militariga biliiska maaragtay nabad sugidda waxaan uga sheegaynaa halkaan haddaan qurba joogtanahay adduunyada dhan sirdoonnadoodii indhaha soomaaliya lagu hayaa waxaan inii sheegaynaa ninka loo magacaabay maaragtay sirdoonka soomaaliyeed oo fahad yaasiin la leeyahay laba wadan ayaa laga raadinahayaa mid waa maraykanka oo amar buuxa ku bixiya hadeertaan oo tallaabo laga qaadi doono bilaha dambe oo soo socda ninka la leeyahay oo kaleeto waxaa ku jira isaguna wadanka kale waxaa ku jira aan dhihi lahaa raalli ahaade UK ingiriiska oo og fahad yaasiin inuu al-shabaab murder criminal uu yahay ayaa adduun weynaha looga waxeen yahay marka nabad sugidda soomaaliyeed waxaan u sheegayaa oo ilaahay marqaati uu iiga yahay waa yowmul jamce jamca mabaarak kulligiisa u dhintiin ummadda soomaaliyeed waxaan ini leeyahay fahad yaasiin iyona bohol ininka talin soomaaliya adinkaa iskale ciidankuna wuxuu u shaqeeya waa shacabka soomaaliyeed madaxweyne cusub baa imaanahaya waa igu wallaahi waa igu bilaahi waa igu tallaahi farmaajo inuuna kursiga ku fadhinayn marka waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed qalad badan ayaa ciidankoo waxaad ka gasheen shacabka soomaaliyeed siiba nabad sugidda soomaaliyeed forgad iska dhe wuxuu fahad yaasiin hadda soo qortay iyo farmaajo iyo kuwaasu nabad sugid shaqa kuma lahan kuwii horaan ka hadlahaya oo waddanka joogo nabad sugidda ahaa farmaajo ka hor iyo kuwa ciidanka iyo militariga iyo biliiska adigu waxaad ciidan ku tahay inaad badbaadiso ummadda soomaaliyeed ciidan kuma tihid farmaajo inuu kuu isticmaalo ciidankii shacabkii lagugu talagalay inaad ilaaliso horta waxaase taasaa inii sheegahayaa in ka hoos baxday war adigu waxaad ciidan ku tahay inaad ciidda iyo calanka iyo shacabkaada aad ilaashato oo shacabkaada aan la dilin oo carruurtaada aan la kufsanin oo carruurtaada keliyaha iyo beerka dhallinyaradaada aan lagala bixin oo gaale ay joogaan 17 degmo oo magaalada muqdisho maaragtay meelaha u dhow xerooyinka militariga oo micno markii lagu qabto la weynahayo wiilkoo gaale ay dhex taagan tahay meesha oo keliyaha lagala baxayo la afduubayo markii nabad sugiddu la boodo meel niman caddaana joogaana la geynaya oo keliyaha lagala baxaya marka yaa ciidan u tahay calankii hoostiisa adinkoo ciidankii soomaaliyeeda ayuu farmaajo dhibaatadan arkay ku samaynahayaa ilmihiinni la xoogahayaa dhallinyaradiinni la dilahayaa ma calankaad adigu u tahay dad mise farmaajoad u tahay farmaajo soo kuugu adeegsadaa isagoo madaxweyneha seed uga yeeshaan ciidan iyo rag siyaasiina oo dibitaatiyaala in maaragtay xisbiya leh inaad weerartaan oo aad dishaan see ugu talagasheen ma waxaad u malaysa farmaajo inuu waxay qaba in allaale inta farmaajo la soo shaqayso gacan ku dhiiglaha waa la wada qabanaya daryaaltigan inii sheegahaya waxaana maanta inii sheegahayaa allaafi waa jeclahay ciidanka soomaaliyeed laakiin waxaan ku jeclahay calanka iyo ciidda iyo shacabka inaad u hiilisaan nin oo raba inuu matalo hitlerkii jermalka oo laga takhallusa moogeen oo dadka foornada geynaya farmaajo waxba ma dhaamo abiy axmed waa ka daran yahay hitleraan ku leeyahay wuxuu ku dagaalamo lama yaqaano dagaal soomaaliyeed yeenay gelin soomaaliya dagaal bay qarka u saaran tahay waana lagu kala baxayaa wallaahi iyo bilaahi una farmaajo waddanka joogeyn farmaajo soomaaliya uu ku dhimanaya asaana raalli ka ah ya waana aragteenoo naag waa ka liitaa markii qab yar uu maqlo waa cararhayaa kaadida ma cishin kara fag ay ka leedahay marka ciidanka soomaaliyeed waxaan u sheegahayaa danaan waxaa loo baahan yahay in aad damqato oo calankan buluuga oo 5 xidiga uu ku damqiyo inaad ilmaha yaryarka oo saqiirka oo aad dhali kartaan ama walaalihiin ama hooyooyinkiin ama walaalihiin dhaleen oo kaleeto oo magaalada muqdisho lagu kufsanayo niman militariga ayaa wiilal yaryar kufsaday ilaahay waxaan ka barinaa calaamo ilaahay inuu ka soo saaro waana la dilahayaa mid faantay ninka 9 jir kufsaday ya waa nin jiran ciidan soomaaliyeedna kuma jiri karo waa intiirka la geeyaa soo ku keenay wiil yar asaga qaniisa markaasoo cunigi raba asaa la fuulay markaasoo ilmo yaroo islaameed fuulahaya
marka waxaad ogaataan nin kasta oo jiran wuxuu u baahan yahay dhakhtar biskatria ninka jiran oo ciidanka ka mid oo ciyaalka kufsada waa inaad xabeeb u dirtaan waa inuu kaadidiisa cabaa maaragta lasareeti dhexdeeda xabeeb waxaan u malaynayaa lasareeti meesha maskaxdu jooga haddaan laga soo rarin waxaan leeyahay waa inuu kaadidooda u cabaan ciidamada wiilasha yaryarkaa kufsanahaya oo saqiirada oo kuwii la dhashay kuwa hooyadiis dhashay kuwa walaalihiis dhalan yihiin waa isku kaamid iyo naag shisheeye cunugay dhashay waa the same ankii hadduu ajnabi kaa iyo gaalkaa yahay ma kufsan kartid ma intee laga dheelaa waxaad waa sheekada farmaajo oo waddanka ka dilaaciyey soo ma jeedaan marka farmaajo waxyaalaha uu ku hadlo waa maskax jiran maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin jiran jiradana ilaaha keena ceebna male in qof lagu caayo laakiin mas-uul soomaaliyeed ma qaadi karin waa ku qaldanna annagu waxaan ku leeyahay farmaajo maskaxdiisu inay nafiyoobeen kaniini uu ku socdaa abii baa taleefon usoo diro oo yidhi wasiirka arrimaha dabadda casil bal ma abii baa iskale wasiirka arrimaha dabadda bal ilaahan kugu dhaarsheey abii axmed waa nin criminal ah waa nin la dagaalamahaya aan ogahayno codkayga inuu transmission gelahayo la turjumahayo abii axmed waa nin criminal ah waa nin diiday waddanku inuu doorasho galo wuu dhacaayay waa la ogaa si uuna doorasho agostadii lasoo dhaafay uuna u gelin ayuu tigrii ula dagaalamahaya electionkiiuu laqay abii axmed waa very criminal man farmaajona cudurkiisa laba cuduroo isku mid ay qabaan xagga diinta iyo waxay ka siman yihiin xagga criminaliska marka anigu waxaan leeyahay waddanku dagaal ciidankaa ka celin kara ciidankaana diidi kara ciidanka soomaaliyeed waxaan leeyahay tababar xoogle ayaad u baahan tihiin haddiiba madaxweyne ooba isticmaali kara ciidamadii soomaaliyeed inuu ku dalbado guri hebel tag nin hebel tag meel hebel tag wixii qarxi soomaaliya ka dhacay oo ku dhammaadayna wallaahi asagaa ka dambeeya farmaajaa lacag ku bixinaya waxaad ka soo qabataa hiiraan lacagta uu ku bixiyey ma fahmaysaan marka waxaan leeyahay taas waa taas ninka la leeyahay qoorqoor annagu waxaan u fadhinaa waa galmudug election cusub ay gelaysaa qoorqoorna waxaan rabnaa maxkamad in la soo saaro qaa'inul waddan weeyaan reer galmudug oo qiyaamay wasiiradeennii iyo raggeennii siyaasiyiinta ahaa dadkeennii waxgaradka ahaa walaaltinimada kusoo wada dhoweeyey wax kasta ay noqoto ayaan kusoo dhoweynay wixii oo dhan intuu afgambiyey oo wuxuu noo noqday nin farmaajo keligii taliye ah u shaqeeya nin jiran oo criminal ah oo waxaan ku leeyahay ka liita aan ku leeyahay wuxuu ka liitaa inuu nagu tababartuu rabi wuxuu ka liitaa farmaajo mataqaana 4 sano oo waddanka hadda uu hayay wax uu waddanka ka qabtay male hal tilaabo oo waddanka ma u dhisin kaliya wuxuu sameynayay soo ku sii hanan lahaa 4 sano kaleeto war ninku waxa leeyahay maxuu qabaa dastuurkay ku qoran tahay nin kasta 4 sano hayna hayaay ma wuxuu maleeyahay inuu xoog ugu maquuqin karo hadda aan istijaabinna farmaajo annagu haddaan hawiyanahay iyo daaroodba ma jeerteen ogaadeen kulli diyaar lagu yahay in maaragtay tijaabiskaada aad la soo baxdo waxa aad haysa annaguna aan ku tusno waxaan haysano inaan kaa awood iyo quwad badan nahay oon ognahayna mar kale soomaaliya ilaa nin allaale iyo ninka fraud ku sameeya dowladda soomaaliyeed tiirka laga geynayo dagaaladu waa soconayaan nin allaale nin kastoo madaxweyne ka noqda waddanka maalintuu fraud sameeyo haddii sharciga lagu qabto madaxweynimada laga ridi lahaa maalinta aan ogaanay lacagihii dhaqaalihii bangiyadii intuu kasoo gurta lacagta uu gubaayey maanta heerkan layslama soo gaarin waxaanoo dhanna waxaa mas-uuliinka ah nimanka siyaasiyiinta soomaaliyeeda balka waa u seeta dheereeyeen oo xarigay u tuureen ay u daadiyeen in loo daadiya ma ahayn farmaajo in la iska qabtay ahayd anigu taasaan leeyahay marka ciidamada hadalkooda halkaas uu iga ekaanaya waxaan leeyahay unaxa shacabka soomaaliyeed farmaajo wuxuu dagaal ku galahayo lama yaqaano dastuurka waddanka akhrista 4 sano baa madaxweynaha isku leh markaas wuxuu yidhi maxaa la isku bedelahayaa bal muxuu u soo qabtay hadduu nin ragi yahay moo doorashada ka qayb galo hinnow inuunu ka qayb geli karin oo horta lala xisaabtamaayo xoolihii iyo dhaqaalihii waddanka meel kuma sheego intaanoo dhan ninkaan wuxuu dab iskugu rogahayaa dhaqaalihii waddanka oo loo dhiibay ayuuna meel ku sheegin seefihii saxamadii bakeeriyadii koobabkii wixii dahabka ahaay oo dhan oona meelna ku sheegin ulajeedadu waa saas wixii baa ku degta qofka haddoona ilaahay aqoonin oona iimaan lahayn sida farmaajo oo kaleeto uu noqonahayaa marka ciidanka waxaan leeyahay waxaad ku dagaalamaysid waa inaad taqaanaa bicarefulka ahaada shacabaa dilahaya shacabku ma rabo shalay maadaa ku xoojiyey oo farmaajo usoo bannaan saaray waa maya annakaa iskayn ugu soo bannaan baxnay annakaa u qaylinay annakaa soo doorannay annakaa kombyuutarada u fadhinay farmaajo abaal male marka waxaan ku leeyahay soomaali waa duleeyey maalintuu etoobiya hoosgeeyey abii axmedna tan ku dhici doonta igu soo fiirsaday tigrii soo maahan viva tigrii aan leeyahay gul
إلهنا لجرا قولينا قاريسا international كورنا إثيوبيا إشي كوهيان وهذا criminal أبي أحمد يفرماتو واتو criminal يسويان رجانو ورج اسكو بين شيء 24 hours تلفون communication كله أو بنت كنا ندعي مركزوري دورشة هكون واقع دورشة الديدي أدقو كل شو واحد رابطنا كدورشة كمان عيسى أنا أقول حن كله محمد عبد الله يفرماتو قرية أفكي سهرة عارضي سهرة فتضل اللي جاي قلنا هي وأوغان دونتا برك كلمة الشيء بين النقط فرماتو سياسي دي صورنا نقالنا عليه انتو أفر سنة ودنك إيه شعبك وحو قبان لها وحو قبط الملك تاس الله يعيدن كبكيرفول هذا ماشي أتكون ما ليس حق يا حق در مال موضة مرتي توبيا أرك تقرية قوشة حبشيدي وابابين ورمادي ما انتو وحي لحرتين تقرية لحرتين يس أبي أحمد والله اسكا قبانها يا إثيوبيا بكي وحو وذا وح impossible أيو قسمينها يا election كي ودنك كدعي لها يوعنا أبي أحمد واستوبد ما يفهمت سو أسجي والا أيا وحو سيهلي مداوكو صعدة وملحا وكقف سنكر أو كنينو كنو انتو دي لا وردت كان وصومالي دت كان ودت كيجي ودن كيجي دول كيجي دت كيجي ونحو فرماتشا لقا مهايو تاسار ليه ان أحمد غرغور أدوكو عرفنا يساين هذا اسكرفو قال مذوك دبا اسكاله قائن الوضن نوات كل نقطي وانا نقيانتي وناقي يا شرفتي يا اهلنمدي يا ولالتنمدي ام كوغو سو دويني نو ما ادا سمينين لعق بان ندافستي انا قرقورو انا فرماتشو قرقورو لعق بان ندافستي waxaad iska dhigtay inaad sii fadhinaysid adiga laakiin adoo ka dhashay habar gidir oo ka dhashay cadaado oo yaqaano aqliga habar gidir iyo reer galmudug oo dad been lagu dhaqi kara inaynan ahayn doorasho ku soo bixin annaku ninka anka aan nacabnahay doorasho ku soo baxo waa qaabilna ilaa uu ka dhameysanayo waqtigiisa laakiin nin aan ognahay oo doorasho ku soo bixin oo dhiig ka dhigay galmudug oo waxaan arko ku sameeyay nimankii shalay tol ahaan kugu soo dhaweeyana aad lacag dhaafsatay oo 60 milyan oo laga raadinayo talyaanigana qaadatay oo meel aan lacagta cirka iyo dhulka meel aad geysay la waayay maxaad u malaysaa adigu reer galmudug inay yihiin inay adiga wiilasha wasiirada ku hoos imaanahaya maya walaal kuma hoos imaanahaya shalayna ayaga ku sacbatumay qurba jooga ku sacbatuntay been ayaan dadka ka dhaadhicinay laakiin ina farmaajo galmudug waa ku sugaysaa qoor jiibka farmaajo kugu jira galmudugna farmaajo ma xukumo mana imaanahayaan waxa ay galmudug rabtaan soconahaya taas ku tasho xasan sheekh maxamuud iyo shariif iyo cabdiraxmaan cabdi shakuurna waa og yihiin inaad dalaal tahay dalaalna agteena kama socdo waa lagu ogaaday dalaalka farmaajo tahay ما يفاد يدولة قدر يفاد ياسين أيو كريمينال بعد نقوليسا سيدا فاد ياسين تارجت مريكان إنجليز وقت كتير أيا أدونا نقوليسا دتك إسبارها دجنا أيو بدأ مراكب تكسو أف دبي أيا تاي مسورة هذه عجلة هذه أنا هنا بالله إلهي وحي تاي يا إن قلنا اللي يرا سكوتلاند يار أو إنجليز كإن الوجود بالنقار قارو أن تصنع دتك مراكب تأجنب جعلة يبارك هندي ده يندر مراكب تو الطريقة وتاجنا هنا تاي وأنا تصينا إن شاء الله وأنا لقاها يا taas waa ka tagay waxaan u gudbahayaa madaxweynaha cusub oo casriga ah ma sha Allah tabarakallah Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ilaahay ayaa ku jecel malaa'ikta rabbigay unta ku jecel umada Soomaaliyeed ku jecel sida lagu soo dhaweeyay sida diyaaradda ilbaabkeeda loo soo dhoobtay waa si bil aadanimada ka baxsan anu waxa la gul iyo gobonnimo farmaajo wuxuu og yahay oo ka dhaadhacsan inaad dilaysid ka dhaadhacsan annaka nin la dila ma rabna hadii madaxweyne aan noqoto waxaan rabnaa maxkamad inaan soo saarno adduunyada lagu ceebeeyo waa nin annatina wax yar haduu hadal qaldan aad tiraahdo naga tag aad tiraaho farmaajo carabkeedan xariga isku dhagahayo wadnaha istaagahayo waa gariirahaya asaga dhan nervahu la yahay waa dadka nervaha la ma fahamtay oo problemka hadallada ku qabo waa nervaha annakoona iska fiirin nin jiran oo nervaha la ya oo daawo depression cuna ayaan Soomaaliya keenay marka walaalayaal waxaan leeyahay Soomaaliya ayada isku waxaysay saanna inay noqonayso lama ogeyn laakiin adinka u xarig dheereeyay adinka xarig u dheereeyay 4 sano nin nervaha la 4 sano Soomaaliya maba maamuli karee waxa ku cad waa ninka adduunyada dawladii Soomaaliyeed ba ku soo koobay tolkiis kaliya nin allaale ninka madax laga dhigay nin mareexana la hoos dhigay bal aqli xumada uu leeyahay ninku hadawnan wax uu qabanayo una free u ahayn ya maxaa marka hore loo dooranaya mu iska dhaafo ka wada dhigta mareexaan dadka dhan maxaad u hoosgeynaysaa dadka marka waxaan ku leeyahay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur gul waa ku soo dhaweynayna wadajir waa soo dhaweynayna welcome walaalkay waa lagu soo dhaweynaya madaxweynaha waxa tahay 2021 yaa ila sharata mahaya sharadkii farmaajo lacagaan ku helay waad ogeydeen
inaan farmaajo lacag ku helay maantana diyaaraan u ahay madaxweynaha soo socda oo dowladda Soomaaliya Republic Democratic Federaalka waa Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame qofkii lacag ila dhiganaya diyaaraan u ahay inaan lacag la dhigto lacagta ugu yar waa ilaa 1000 diyaaraan u ahay marka tafadala in leeyahay 221ka Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu noqon doonaa madaxweynaha Soomaaliya in sha Allah باذن الله الكريم qofkii raba inuu lacag ila dhigtana is welcome aan leeyahay walaalayaal wadanku waa cakiran yahay adeeso waa soo wada aruureen dadkii Xasan Cali Khayr waa yimid meeshiisii uu khudba ka jeediyay oo marka waxaan leenahay ما شاء الله تبارك الله دad kale inay dhiman yihiin wili waxaan ogahay rag kale inay maqan yihiin Nairobi jiraan waa sugeynaa iyakana waa soo dhaweynayna siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay gul iyo gobonimo alla guuleysto ninkan nervaha la oo daawada depressionka ku socda iyo daawooyinka nervaha oo anigu hadda maanta magaciisa la isiiyo oo aan sheegi karo oo la ii soo diray ayadoo masawira waxaan in ku tusi doonaa caaway marka aan soo galo 10 minute oo Facebook ayaan in tusi doonaa daawada isticmaalo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa la ii soo diray Mareykanka laba nooc oo isticmaala mid antidepressant iyo wuxuu isticmaalaa mid loogu talagalay maaragtay nervayaasha madaxa marka labadiiba waan hayaa sayna macallin marqaatay ka tahay marka waxaan leeyahay gul iyo gobonimo laga gaaray waxaan ku leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajona ilaahay laqdabada ma jeclo Farmaajo waa Hitler yar oo hadda soo kacay waaye laakiin aqoon fiican aan lahayn oo ma aragtay gurguuranayo wili ninkan lagu leeyahay Abiy Ahmedna waa Hitler kaleeto oo asaguna raba inuu Ethiopia chuchumo gacanta ku qabto impossible never ever ma soo galayso Ethiopia Abiy Ahmed Yohan never Ethiopia ma soo galayso waxaan ku leeyahay be careful oo waxaad sameynaysid Ethiopia adaa ku qasaaraya Abiy Ahmed criminal batay dhigyacad batay lot of the people Ethiopian ayaa dhinto daayad adaana masuulka maaragtay la tuwa responsibility adaa dilay adduunyahana waa u sheegaynaa in language ballan ilaahana kaaga qaaday in loo iska ka qabto adduunyahuna indhaha kugu hayo sababta aad tigri ula dagaalaysid waa Abiy Ahmed iyo criminal batay criminalkana waa la iska qabtaa Hitler weeyaan Abiy Ahmed Farmaajona waa Hitler yar oo gurguuranayo waaye Hitlerka weynna waa Abiy Ahmed ma fahanteen Hitler goorma la cunay ma taqaanaa waxaan wili lagu haystaa yuhuudda dhibaatadii uu geystay iyo wadamada Talyaaniga iyo dadkii wadanka yuhuudda oo yuhuudda ahaa ila yuhuuddu ma ahan yuhuudda kaliye ila America ila Europe oo dhan diinta yuhuudda dadkii haystay ayuu Hitler wuxuu ku guray forno ololeysa oo sidii qoryo uga dhigan ku leeyahay ama guriyo dhan baa inta la waxeeyay lagu dumiyay oo lagu daday qabri looga dhigay dhul dhaxdiis waa la tagaa waa tagay anigu meelahaas oo Jarmalka kamida marka waxaan ku leeyahay Abiy Ahmed criminal batay be careful waxaad sameynaysid Ethiopia aad ku haysid you are criminal international ko dhan indhahay kugu hayaan marka waxaan ku leeyahay Farmaajona waa criminal every day adaa la hadla adaa ku dira Soomaaliya asaguna waa nin kinini nervauna iyo kinini depression waa la iska qabanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa impossible in wadanku saas uu ku socon karo waa wax la qaadan karin walaalayaal waxa la gul iyo gobonimo Cabdiraxmaan Cabdishakuur dhaxda loo xirto عدو تلوايا ويان عدو بولي عدو عبد الرحمن عبد الشكور طلعنا كل عضي هلو استاغو هذا سياسيين هويتهين هذا شعب هويتهين فرماجو وإن انتصنا ان كغدني دينا in maaragtay nin noociisa aan Soomaaliya looga baahnayn oo loo baahan yahay nin degan stability leh fadhiya lugiisa culus yihiin afkiisa una fududeen sida Farmaajo xaq ma ku qadanayna hawiye xaq dad wada dhaqameedka ka soo marayna jilbahan u goynayna hawiye jilbahan u laabayna ha u laabi kartaa xaalka iska soo dhaqan ku leeyahay anigu afka iftada ka daynaysid madaxweyne saas ugu ma noqdo shalay waxaan ku dhahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo noolaada maanta waxaan ku arkay you are killer man inata oo criminal ataan ku arkay Soomaaliyana adigu ma baahno Soomaaliya Democratica Republic Federal weeyaan waa dawlad federaal oo Farmaajo u baahneen weeyaan you understand me laakiin adiga iyo Abiy Ahmed Ethiopia ra'iisul wasaarahooda meesha ku dambeyn doontaan inaan waxaan rabaa aan qoslo saan u qoslaayo indhaha biyo iga soo daataan ya waana ballan ilaahay Soomaaliya waa in salaam haya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame aloo kaco wallahi billahi ilina iga soo daadatay soo dhaweyski la soo dhaweeyay war airportka banaanka aadan cadama waa ogtiin dad badanna waa dhoobnaayeen oo qayra iyo dad waa u joogeen ilaa banaanka biyaalaha markii laga baxaayo shacabka meesha dhoobna laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa looga hortagay diyaaradda ilbaabkeeda cid hawiye habar gidir
hiraab oo sas u duulaysa airbortka intay galeen airbortka diyaaradda markuu kasoo deganaya saas loogu tagay allafiyo waa ku jeclahay wiil soomaaliyeedaa tahay hooyo soomaaliyeedaa ku dhashay gabar soomaaliyeedaad qabtaa waxaan ku leeyahay guul iyo gobonnimo cadowgaadana cagta hoostiisa cabdiraxmaano waa guulaysanaysaa ilaahay caza wajalla meel oo wax ka wada nin og ma leh laakiin waa guulaysanaysaa lilaahi iyo laqdaba meel ma wada galaan cabdiraxmaan cabdishakuur waa guulaysane guul baad gaaraysaa iga qor aniga khataraa 2021 adigu waxaa tahay madaxweynaha soomaaliya taas markaan ka baxo gul iyo gobonnimo madaxweynaha soo socda soomaaliyeed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waa ku taageersannahay awalba farmaajo annaka qurbaha ka taageernay maantana adigana waa kula jirnaa madaxweyne soo dhowow waan ku leenahay madaxweyne soo dhowow waa ku soo dhowaynaynaa calanka soomaaliyeedna waa kugu soo dhowaynaynaa qorqor soo maahan xisaabo xilmalaa taalla dhiiggii direed dhiigagii cidda saleebaan reexaaji loo geystay iyo dhiigagii cayr oo asaga ay Fahad Yaasiin ay ka dambeeyeen iyo nabad sugidda dadka reebaadiyaha inta la siiyo qoryaha automaticada oo la heli karin oo dawladdu lahayd annagu waxaan kula xisaabtamaynaa qorqor axmed qorqor aan kula xisaabtamaynaa maantana galmudug waxay u baahan tahay isbedel weyn waxay u baahan tahay madaxweyne muuqaal iyo sharaf iyo magac leh madaxweyne wax ka qabasho leh laakiin madaxweyne galmudug intuu kusoo wareegay xoolo loo qalahayo caana cabahayo annagu uma baahnin taas waa sikin kategoriya inoo gelaysaa midda labaad galmudug waxay u baahan tahay aqoon nin kastoo soo mara inuu annaka meesha dhagax intuu noo soo qaado dhagax noo soo dhigo ma waxaan noqona magaaladii dhagaxa la dhigahayo beenta lagu waxaynahayo war galmudugow goormay saas odayaashiina reemiyiga ragga ugu aqli badan baa tihiin aqliga u dhalasho weeyaan cilmiguna waa ku kabaa soo ma ogid seed uga yeesheen inta dhagax halkaan laga soo qaado in dhagax halkaan lagu dhigo haw aad u yeesheen